Abara sabka gobolka Salal iyo taliye xigeenada qaybta booliska gobolka iyo guutada militariga Brisley ayaa booqday deegaano kamid ah gobolka Salal oo ay maalmihii u dambeeyay diyaarado aan haybtooda la aqoonsanin rasaas ku garaacayeen. diyaaradahan oo ka soo kacayay dhinaca badda gacanka cadmeed ayaa waxay garaacayeen deegaano ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqato ah oo reer guuraa waxaanay deegaanadaasi waxyeello ku soo gaarsiiyeen xoolo isugu jira geel iyo adhi. waa kan mid kamid ah dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaankaasi oo isagu lahaa awr halkaasi diyaaraduhu ku dileen habeenadii u dambeeyay. diyaaradihii balaleed bay noqdeen way baqtiyeen markay iska baqtiyeen iyaan anaguna shikino tooshkina waan iska baqtinay dabka wuxuu korsanayeen waan iska aasnay telefoonkaygana markaa waan iska xidhnay cabsi baan naga shaydi cabsi markay naga shay meel naga koonayso oo sidoo kale naga ah iyay ku riday rasaasta gib way ku baastay ilaa indheer inta geedka gobka noo jirto iyay ku riday dhulkiiba dabcad ka dhigtay daraar caadi anagu hadii waan dhabarnaydi la badbaadiyana wixii aan la joogna oo kala caamado mid yaadi meel in baxsatay in kala uu noqdo kolkay naga tagtay iyadoo bilaa ilaa sabay halka ka jireeso halka oo wixii sida badda ugu nooga laam waxay tahay ma garanay waxaan weyn iyo waxaan maqalay waxaan mid ma yahay kadib markaa kadib walku waagu bariyay baan wixii doodoonay wixii aan geeli baxsaday maan intii aan helayna waan ka xayno meel biilanay subaxdii dambaan ku soo noqonay mid baqti walkii yeela iyo mid dhaawacano madax kaga dhacday wax oo halkii fadhiya. dhanka kale barasaabka gobolka Salal Axmed Maxamed Xaashi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay xaaladani ku cusub deegaanka. halkan waxa weeyaan meesha la yiraahdo Goryood dooxa Goryood dooxan reer baa ag degan waa dad masaakiin ah waa dad xoolo dhaqato ah waa dadka guryahooda ay arkana intay leeyihiin iyo halka ay magaranaysa ay ku jiraan waa dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen waa dad aad u taag daran haddana tii waxa u raacda wax baa ku soo cusboonaaday gobolka maalin walba waxaad maqlaysaa meel bay diyaarada fadhiisatay hore waa tii u fadhiisatay halkan Brisley buurahan dhexdooda in fara badan bay wax ku riday meelo aan dad joogin markaas imaka waxa la sheegayaa meelo kale in waan ku soconaaye inay xoolo waxyeeleysay dadkii dhibtaas haysata haddaba dadkii masaakiinta ah ee gobolka deganaa markay taasi haysato waxa la doonayaa horta diyaaradahani waxay ka soo kacaan halkan badda kuwan shalay markii la eegayay halkan badda ka soo kaceen habeen oo dhan saasay noo dul taagan yihiin oo gariirka baxaya iyo waxa badda lagu ridayo iyo guuxooda ayaa seelacna dawqiya dhib fara badan baa runtii dadku qabaan arintaasi taar baanu ka dirnay saaka taar baanu ka dirnay wasaaradda arrimaha gudaha u dirnay iyo xukuumadda. Maxamed Awaala Daahir on Cable TV magaalada Saylac.